Dacawo iyo Tuke, Sheeko Soomali. Beri waxaa jiray Tuke gaajoonaya oo wuxuu cuno raadinaya. Wuxuu helay farmaajo dhulka taala. Nasiibkayga ayuu yidhi. Dhaqso intuu afka ku ritay ayuu duulay oo laangeed dheer ku fadhiistay si uu farmaajada u cuno. Dacawo qudheedu gaajoonaysa ayaa soo agmartay geedka. Tukihii oo farmaajo haysta ayay aragtay. Dacwadu waxay ahayd khaayimad. Waxay ka fikirtay siday uga qaado tukaha oo u cunto keligeed farmaajada. Dacawadii geedkii ayay hoos timi. Subax wanaagsan Tuke. Tukihii ayay ammaantiisii bilowday. Maanta aad baad u qurux badan tahay. Baalashaada madow waabay dhalaalayaan. Haddii codkaagu la mid yahay quruxdaada, waxaan odhan lahaa xayawaan ka qurux badan ma jiro tukaha. Waxaad ahaan lahayd boqorkii shimbiraha, ayay tiri Dacawadii. Laakiin xayawaanada kale waxay yidhaaheen codkaagu ma fiicna. Malaha runtood maaha. Tukihii wuu isla weynaaday. Dacawadii waxay ku tidhi, maadii heesi bal si aan u maqlo codkaaga quruxda badan. Tukihii ammaantii Dacawada ayuu run mooday. Wuxuu is yidhi hees. Inuu wax afka ku haysto ayuu ilaaway. Farmaajadii dhulkay ku dhacday. Dacawadii ayaa ku booday oo qaadatay. Dacawadii intay doonaysay ayay heshay. Tukihiina wuxuu ogaaday in la khiyaameeyey. Dacawadii waxay ku tidhi, farmaajadii waxaan kuugu beddelayaa la talis. Qof haddii uu ku ammaano, mar walba run ha moodin. Ka fikir intaanad aaminin inuu qof daacada yahay. Sheekadan maxaa laga baran karaa? Dhaqso waxaa u rumaynin adigoon ogeyn runta. Arrimuhu had iyo jeer uma eeka siday u muuqdaan. Haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like, amba share si aad noo taageerto. Somali For Kids waxay ku faraxsan yihiin inay idin ogeysiiyaan tartankii sheekooyinka ee ugu horreeyey. Booqo website-kayaga haddii aad rabtid inaad sheeko noo soo dirtid. Sheekada ugu wanaagsan waxaa laga soo jeedinayaa channelka YouTube ee Somali For Kids. Waxaad daawan doonaa 10,000 qof oo noo subscribey. Abaalmarinna magacaaga waxaa lagu darayaa aqoonsashada iyo warbixinta bulshada inaad tartankan ku guulaysatay. Tartanku wuxuu xidhmayaa maalinta bisha ugu dambaysa. Hadda ka soo qayb gal tartanka. Daawadayaal, maanta waxaan rabaa inaan idinkala hadlo sida aad isaga badbaadin kartaan xanuunka coronaviruska. Ugu horreyn, inaad gacmaha saabuun iyo biyo ku maydho muddo ugu yaraan 20 ilbiriqsi ah. Iska ilaali inaad taabato wejiga, indhaha iyo afkaaga. Gacmuhu waxyaabo badan ayay taabtaan, sidaas ayuu xanuunku ku fidaa. Iska ilaali
meelaha dadku ku badan yihiin. marka dad ku dhex jirtid masaafada idin dhaxaysa ilaali 2 mitir ha idin dhaxeeyaan adiga iyo dadka aan guriga kula deganayn. guriga joog haddii aad xanuunsanaysid. tusaale ahaan haddii aad xumad ama qufac leedahay. haddii aad qof yar tahay waalidiintaada ayaa shaqaale caafimaad la hadlay. guriga joog gacmahaaga nadiifi isbadbaadi. haddii aad ku cusub tahay channelkayaga fadlan taabo subscribe like amba share si aad noo taageerto.